محمد waxaad ku magac dheertay Shiine waxa tahay ciyaartoy in badan ay wada garanayaan bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer Shiine waxaad ka sugan tahay telefishinka caalamiga Ariel halkaad ku dhalatay iyo waxbarashadaadii heerarkii kala duwan halkaad ka soo qaadatay adigoo noo sheegaya ma xusi kartaa bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu yahay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed lagu naanaasa Shiine waxaan ku dhashay magaalada gobolka Burco Togdheer ayaan ku barbaaray waxbarashadeeda dugsi hoose ilaa dugsi sare waxaan ku qaatay isla Burco waxaanan iskuulka dhigan jiray Jamaal Cabdi Naasir ayaan ku qaatay halka heerkayga waxbarasho kala duwan gobolka Togdheer ayaan ku dhameystay kubadda cagta qof walba ciyaartoy marxalad buu ka bilaabaa ama stage waxaad ciyaartoy daayar halkaad ka bilowday kubadda cagta adigoo noo sheegay maraaxilkii kala duwan ay kubadda cagta ee aad soo martay adigoo xusaya intaba ma noo sheegi kartaa waad mahadsantahay Sikriye aad baad kugu mahadnaqayaa anigoo ka sheekeynay taariikhdeeda kubadda cagta run ahaantii kubadda waxaan bilaabay meel aad ugu hooseysa run ahaantii anoo aad u yar baan bilaabay run ahaantii waxaanan ahaa ku bilaabay kubadaha loo yaqaan sharabaadka kubadda loo yaqaan tenista kubadda loo yaqaan forta waxaanan ahaa ciyaalka yar xaafadaha ku ciyaara run ahaantii afar gooley waxaan ku ciyaar jiray kale kubadda xaafadaha la isu dhacdhaco heerar kala duwan ayaan yaraanteedii soo maray kubadda anigoo ugu gudbay harka loo yaqaan masaafada Serie C anigoo kooxdeedii halkan aad uga xusaya Lions kooxan muddo badan u ciyaarayay ahayd waxaan la gaaray guulo badan waxaan la gaaray koob badan nasabka Serie C-da waxaan ugu gudbay mandaqada heerka Serie B oo runtii iyaduna ah heerkii ugu fiicnaa aan ku soo oran karo kubaddeeda oo ku soo baxday marka iyadana waxaan u ciyaaray kooxdeedana halkan aad u xusu doono Samtel ayaan iyadana guulo badan iyo koob badan kula guuleystay oo kooxan aad u jecelahay runtii kooxdaas ayaan in badan Serie B-deeda aanan dhinac kale uga aaday ku dhameystay anigoo ugu gudbay heerka Serie A loo yaqaan mandaqada ugu sareysa marka laga yimaado heer gobol heerka ugu sareeya waa Serie A runtii waxaan u ciyaaray kooxan oran karo kooxda gobolka Togdheer ugu manfaca weyn waa koox markaan macaqiimeeyo waxa ugu magac weyn tahay heerka jamhuuriyadda Soomaaliland kooxaha Serie A-da waa kooxdii ugu mudnayd aan u ciyaaray iguna fiicneed abadan intaan ciyaarayay magaceedana caafi baleeda run ahaantii waa kooxan aad u xiso waxa kale ka mid ahaa anigoo ahaa 2011 dhalintii 2007 waxaan ahaa dhalinyaradii markii koobka gobolada laga soo noqday degmooyinka gobolka degmada Burco ciyaaray markii koobka gobolada Burco soo qaaday ayaa la furay koobkii degmooyinka waxaan u ciyaaray degmada Burco ayaan soo maray waxaan kale u soo ciyaaray 2011 heerka gobolka Burco oo masafkii ugu sareeyay ah ayaan ciyaaryahanadii loo qaatay kamid ahaa isla waxaan kamid ahaa 2013 ciyaaryahanadii loo qaatay gobolka Togdheer isla waxaan kamid ahaa 2014 inaan kamid noqdo kooxda ciidanka booliska oo aan ahaa ciyaaryahanadii markaa la qaatay aanu noqday inaan mushahar ku noqdo waxaan kamid ahaa kale isla 2015 inaan xulka gobolka Saraar u ciyaaro run ahaantii waa waqtigii ugu dambeysay koobka gobolada waxaan ka mid noqday xulka gobolka Saraar inaan ciyaaro 2015 run ahaantii kubadda waxaan soo maray stage kala duwan masaafo kala duwan heerarkaas oo aad u badan oo qaar badan laga yaabo inaan ilaawan soo maray intaas aan kulli ka xasuusta taariikhdeeda kubadda cagta intii aan soo maray waxaan wada ognahay qof kastoo ciyaartoy waxa uu leeyahay waqtiyo firaaqo leh waqtiyadaas firaaqada leedahay marka laga yimaado kubadda cagta waxyaabaha ku bedela adigoo noo sheegaya ma xusi kartaa waqtiyada aan kulli firaaqada leeyahay horta waxaan aad u dhageystaa xadiisyada ayaan u jecelahay markaan kale ku noqdana waxaan jecelahay taariikhii kubadda cagta hore sida ciyaaryahanadii hore kale skillskoodii inaan daawado ayaan aad ugu raaxaystaa jecelahay inaan mar walba daawado kale naftayda aan ku maawiliya qof walba kubadda cagta markuu yara garoomada uu iman jiray isagoo yar waxaa jiray qof role model uu ahaa ama mar walba uu ku dayan jiray qofka adigoo xusaya ama ciyaartoygu ahaa magaciisa aad mar walba jeclayd ama inaad ka garab ciyaarto ama inaad mustaqbalka isagoo kale noqoto adigoo halkan uga faa'iideysanaya Janiska way jirtay waana wax jirtay in qofkan playerka markuu yar yahay inuu ciyaarto ku daydo waxa weeyaan qof walba player markuu kubadda daawanayo dadka ka waaweyn wuxuu jecel yahay qofkaasiisa inuu ciyaaro anigu aad baan u jeclaa waxaan halkan ka xusaya laba ciyaaryahan oo aad u jeclaa kubaddooda marka aan daawanayo waliba kooxda caafi ciyaar jiray ciyaaryahanadii gobolka soo maray kuwa ugu fiicnaa waqtiyadii 2004-2003 labada ciyaaryahan oo mid yahay Muuse Yuusuf Musaarako dadku yaqaanaan oo striker gool dhaliya shakhsiyaad baa ka soo gacan qabtay kubadda cagta inaad timaado stage-yadan ama maraaxilkan
macallimiin kabtano ciyaartooyo asxaab family cid walba leh adigoo shakhsiyaadka mid laba intaba xusaya caawa ma noo sheegi kartaa waa runtaa wallaahi askariga su-aasha waa su-aal aad u fiican qofkan markuu yar yahay waa lasoo qacan qabtaa ilaa heeskiisa c ilaa b ilaa e dad baa kusoo tacbaa anigu kolley markaan iminka taarikhdeeda kubadda cagta aan ka hadlo ciddii soo qacan qabatay horta xanaalkan aad ugu mahadnaqaya macalinkayga xasan bootaan maxamed run ahaantii oo ah macalin aad iyo aad isoo garab qabtay aan oran karo waa macalinkii ugu fiicnaa halkan kale waxaan uga xusayaa ilaahay ha u naxariistee macalinkii yaraanteedii ama serebidii ama sidii oo iminka aan noolan xasan yirowe ilaahay jannatul firdawsaha ka waraabiyo waxaan halkan kale ka xusayaa macalinkii gobolka togdheer macamal yuusuf kaahiye oo loo yaqaano macalin dhoomber waxa weeyaan macalin aad iigu fiican iyo igu wanaagsan isna kolley runaantii xusitaan gaara halkaasaan ka salaamayaa waxaan halkan kale ka salaamayaa si weyn uga salaamayaa asxaabtaydii qaaliga ahayd dhammaan caafi ay soo gacan qabatay runaantii asxaabtaasana wada ilaawi kareen kabtankeedii iyo raggii haldoorka ahaa oo runaantii aanan midna kusoo koobi karin laakiin maamulka kubadda cagta xidhiidhka wasaaradda intaba fariintaad u dirayso maadaama tahay qof dhallinyaro ah xaq iyo xuquuq aad ku leedahay adigoo sheegaya fariintaad caawa halkan u marinayso mid iyo laba intaba adigoo xusaya bismillahi raxmaan su-aasha waa su-aal aan u baahnaa maadaamaan ahay ciyaaryahanada ka tirsan gobolka togdheer wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha jamhuuriyadda somalilan waxaan halkan runaantii uga dirayaa iyadoo maqaamkii la doonayay gobolada weliba bariga ama gobolka togdheer aanan weli wax aanan cad ku arag horeyso iyo dambaysaba anugu oran maayo maanta weeyaan laakiin horey u dhacday waxaanu halkay ka marayaan heerarka kooxaha seere-eeda ee gobolada kale inay maanta dee heer gaadhaan 10 seere kooxood inay mushaar qaataan maanta innaga ayaan daraa waxa aan u sheegay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu iska daa mushahar ama wax kalabe inay garoonkii noo godli weydo garoonkii inay dhigto doogii waxa weeyaan wasaarad baa timi wasiir baa yimi intay meesha saa u yar dhigeen bay ka yaaceen taasna anugu kolley fikrad ahaan iyo aragti ahaan noomay fiicneen waxaanan oran lahaa wasaarad walbo la doortaa kolley ma egto gobolka togdheer laakiin waxaan rajaynayaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha aan u diraya baaqa inay sidan ay imika u socoto maqaabka ciyaaruhu inaanay wanaagsaneyn baan u malaynayaa in wax laga bedelo in gobolkii togdheer waa waxaa la yidhahdaa waa hooyadii jamhuuriyadda somalilan halka lagu aasaasay laakiin waxaan u arkaa maqaamkii kubadda inaanan waxba ka ahayn marka loo eego jamhuuriyadda somalilan ama wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waxa weeyaan wasiir walba iyo agaasimaha waxaa loo doortaa waxa weeyaan wasiirku wuxuu doonaa lagu doorto laakiin agaasimuhu waa qof kubad ku dhex jiray aqoonna u leh laakiin anigu waxaan u arkaa agaasimo walba iyo wixii la doortaaba inaanay maqaamkooda aanay mar walba gobolka togdheer aanay aada ugu fiirsan waxaan oran lahaa dhalintii ciyaaraysay waxaa loo qabtay tartan 20 kooxooda way ogeyd wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu inta ay soo galeen ayay garoonkii qufuleen xidheen taasna maqaamkeedu may fiicneen waxay ahayd haatayna koobka u dhameeyaan anigu waxaan oran lahaa dhalintii gobolka togdheer mar walba kubadda waxaad moodaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaruhu inay iyadu sii awdayso waxa weeyaan dhallinyaradu haddii aan laga qaban sidan iminka ku socoto wasaaraddu tuub iyo wax walba waa la noqonayaa iyo baluud iyo wax walba la noqon marka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha waxaan u dirayaa iyadoo aan ognahay marxaladda ay kubadda cagta gobolka togdheer kaga jirto dee in ay saa noqoto ma ahayna in maqaamkeeda sare loo soo qaado oo maanta garoonada jamhuuriyadda somalilan dhammaan oo dhan doog baa yaala maxaa sababay gobolka almise stadium in aanu doogu helin waxaan u arkaa wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha waxaan u arkaa wax wasaaraddu kolley iyadu wadato dhallinyarada somalilan min bari ilaa galbeed meel walbay ku sugan yihiin hal mid baa tihiin hal shakhsi baa tihiin dardaarankaad halkan u marinaysa maadaama tahay ciyaartoy ku jira fiilka sportska ama kubadda cagta adigoo xusaya fariintaad caawa halkan u marinayso wallaahi dhallinyarada jamhuuriyadda somalilan dhammaan waxaan horta halkan uga dirayaa baaqa kolley kubaddu waa waxaan ku walaalownay maanta inagu baxda sportsku waxa qudhay ku walaalkuyin waa kubadda waxaan oran lahaa in ay dadaalkan inta laga sii badiyo in hankeenu noqdo koob gobol qura maaha in jamhuuriyadeenu ay isku daydo inay noqoto liigad inay noqoto koobabka waaweyn waxa weeyaan belayarku hadduu sidan ku socdo sanad walba koobka gobolada ilaayo dee wuu duqoobaya waxa weeyaan maanta waxa jirta niman aan koob gobol hal mar ciyaaro marka ciyaaraan dib u soo noqon waxa weeyaan maanta haddii hal gobol lagu arko wax lagu oranaya da baa tahay ama weyn baa tahay taana waxa weeyaan waa kolley wax inagu aan kolley halkaas u dhignay laakiin waxa weeyaan waxaan u sheegayaa dhallinyarada jamhuuriyadda somalilan in kolley la sameeyo dadaallo aad u badan oo kubadda ka hadlaya lagama hadlo weliba waxaan anugu oran lahaa koobab sidan ka badan oo noqda
in gobolada oo dhan lasoo maro meel walba laga soo wada ciyaaro la isdhex galo ayaan anu kule rajeynayaa dhallinyaradeeda gobolka togdheer baan iyagana fariin u dirayaa halkan waan leeyahay waan ugu dirayaa maadaama nahay player ka soo jeeda gobolka togdheer dhallinyarada gobolka togdheer waxaan oranayaa gobolka togdheer maanta waxa laga yaabaa waxa haysataan hore inaan loo haysan waxa laga yaabaa maanta qalabkiinaan wax u hayn waxa weeyaan maanta meeqaamka taagantiin waa meeqaamana dadka hore taagnayn laakiin anu waxaan rajeynayaa inay noqotaan kuwii gobolka togdheer soo celiya kuwii rajadoodii soo nooleeya kuwii meeqaamkan uu taagaya maanta ka qaada meeqaamkii loo yaqaanay gobolka togdheer inaa geysaan baan doonayaa anigoo u warhaya dhallinyarada maanta joogta inay tahay dhalinyaro aad kubaddooda u fiican tahay laakiin aan lahayn wax taakulina ama wax maamulka gobolka ama degmada ahaato inaanay wax qabadaanay runaantii siin laakiin waxaan oran lahaa shakhsiyaadkiina gaartiina inaad ugu dhimataan gobolka togdheer inaad soo bandhigtaan ciyaara ka duwan kuwii sanadadii hore ayaan rajeynayaa waxaan leeyahay waxa maqaadaraadka la yaraado iyo waxa la yaraado balwada inaad iska ilaalisaan ta kale waxaan halkan ka sii diraya waxa qabyaalada leh oo waxayna ku xanta gobolka togdheer waxaan rajeynayaa wixii imika ka dambeeya inaan dib u daba u arkin waxaan ayaa jiilkan dambe inay noqdaan jiilkii hormuudka gobolka togdheer waana jiilan aad uga warhayo aadna ugu dhex jiro xirfadeeda kubadeedna aad u fiican tahay waxaan rajeynayaa kubadiina inaan insha Allah wixii waxaan ka dambeeya inkasta aad u dhalinyaro yihiin laakiin wixii ka dambeeya inaan niqaamkii gobolka togdheer ku soo celisaan halkii lagu yaqaanay jamhuuriyadda Soomaaliland burco waxa lagu yaqaanay baraashiinta Soomaaliland waxa weeyaan ninkii garanaya laakiin waxaan rajeynayaa inaad kuwii soo celiyaan noqotaan in aan kulay runaantii intaas ayaan ku soo koobaya cuntooyinka jeceshay ka shakhsiyan inaad cunto mar walba adigoo noo sheegay way jiraan waan kulay jecelahay inkastay markay dee qofka bilaadanka uu gacoonayo cooshu cunto walba jeceshay laakiin hobbiga qofka waxa jira inuu cunto gaara hobbigiisa ku siiyo kulay anu way jirtaa aad waxaan u jecelahay inaan mar walba cuno cuntada loo yaqaan kalluunka ayaan aad u jecelahay inaan mar walba cuno kalluunkan aad u jecelahay iyo kulay ayaan markaa ka xasuustaa aad iyo kalluunkan u jecelahay sharaab oo kaleena waa jecelahay sida sharaabka inaan cabo cambaho kaleena waa jecelahay qof walba waxbuu jecelahay inuu daawado ama TV-ga markuu hor fadhiyo ama social media ku jiro maxaad jeceshahay inaad daawato mar walba way jiraan waqtiyada aan kulay firaaqada hayaan kaliya meel iska joogo waa jecelahay waliba waxaan aad u jecelahay kuwa Mareykanka waliba ku actionka ayaan aad u jecelahay filimada Mareykanka aad u xiiseeyaan ugu dambeyn iyo aad u mahad celinaysaa oo aad jeceshahay caawa inaad halkan ka xusto adigoo uga faa'iideysanaya jaaniskan qiimaha badan leh horta ugu dambeyn ilaahay baa mahad leh haddaan ilaahay loo mahad celin kolley dee mar walba in ilaahay xusno waa u baahan tahay laakiin halkan si gaar ahaan waxaan uga xusayaa horta marka ugu horeysa TV-ga Ariel si aad iyo aad baan u xusayaa waliba Sakariya Haldoor waxa weeyaan saxafi aad madax banaan baa tahay waliba bahda sportiska adiga aad baan kugu mahadnaqayaa TV-ga Ariel aad baan ugu mahadnaqayaa waa TV kolley runaantii gobolkayga Togdheer iyo gobolka magaalada caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland baa aad uga shaqeeya sportiska waliba si aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa Sakariya adiga aad baan kugu mahadnaqayaa halkan kale waxaan ka mahadnaqayaa familygayga hooyaday aan aad u jecelahay iyo habarrahay iyo dhammaan familygayga ayahay aad baan halkan ugu mahadnaqayaa iyo kulay eedooyinkay dhammaan iyagoo meel walba joogaan waan u mahadnaqayaa iyo adeeraday dhammaan baan u mahadnaqayaa halkan kale waxaan uga mahadnaqayaa asxaabtayda qaaliga sida Xuseen Salabaan Xuseen Bigeefo oo saaxiibkay aad ugu wanaagsan iguna dhow aad baan isku mahadnaqayaa asxaab kale aad u badan halkan aan uga salaamayaa dhammaan asxaabtayda waxaan kale aad uga salaamayaa macalinkayga Xasan Bootaan Maxamed iyo asxaab aad u badan saaxiibna waxaan leeyahay dhammaantiin saaxiibayaal si weyn baan idin salaamayaa waxaan isna halkan ka salaamayaa macalin aad ugu yar caasimadda Hargeysa jooga oo magaciisa Saciid Axmed oo Saciid aan qow yaqaanaan waa macalin aad isaguna igu wanaagsan runaantii macalin dhiirigelin fiican ah oo u sameeyeen dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland waa macalin runaantii aan aad u jecelahay isna Saciid aad baan ku salaamayaa saaxiib meel walba joogto asxaabtayda kale aad baan u salaamayaa dhammaan meel walba ay joogaan dibad iyo gudo waan sugnahay saaxiibayaal dhammaantiina waan wada salaamayaa waxaan leeyahay khayr baan sugnahay assalaamu calaykum